Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawow BTech. Mobilkaagu haddii uu yahay Android 9, hadda Android 10 baa laga dhigay oo waa la update gareeyay. Haddii aad ka warhayso, haddii kalena ku update gareyso imika oo markaasi 10 ka dhigo si aad u isticmaasho adeegyadan cusub iyo featureskan cusub ee lagu soo kordhiyay. Mobilada markaasi Android 10 uu ku shaqeynayo waa A20s ama wixii ka sareeya. A20 wixii ka hooseeya inuu ku shaqeyn ba suurtagal waqtigan. A30 A40 iyo kuwa ka sareeya inaad ku update gareyn karto ayay ila tahay sidaan markaasi ka warhayo. S9 S8 plus S10 plus iyo Note-dana waad ku isticmaali kartaa oo waad ku update gareyn kartaa. Haddaba halkan waxaan markaasi ku sheegaynaa xogaa yar oo ku saabsan Android 10 iyo qaabka markaasi loo update gareysanayo iyo markaasi adeegyada wato in kamid ah halkan kuma dhameyn karna adeegyadaasi oo qayb kamid ah markaasi eegi doona. Haddii markaasi mobilkaagu uu leeyahay oo rabto inaad update gareyso qaybta setting-ka ayaa tagaysaa. Setting-ka markaad tagto halka ugu hooseysa ee about phone ay ku qoran tahay baad taaban doontaa. Waxaad kasii dooran doontaa software information. Halka ugu sareysa Android version ay ku qoran tahay waxaad ka arki doontaa markaasi inay 9 ku tahay iyo inay ka hooseyso in kale. Hadda aniga waa 10 version-kii ugu dambeeyay ayaan ku update gareeyay. Markaasi 10ku kii hore waxa uu kaga duwan yahay adeegyo cusub oo uu wato oo dheer yahay markaasi 9kii hore. Markaasi waxaad u update gareynaysaa qaabkan markaas setting-ka soo gasho halka ugu hooseysa markaasi saddex ka hooseeyaan halka software update ay ku qoran tahay baad ku dul dhufan doontaa. Waxaad kasii dooran doontaa download and install. Download and install marka ku dhufato halkan waxa markaasi ku raadin doonaa haddii wax update uu ku yaaliyo in kale ay markaasi halkan kaaga raadin doonaa. Haddii wax update markaasi diyaar ku yahay ama available ku yahay wuxuu ka oran doonaa download gareyso adna download baran doontaa. Download markuu ku dhameeyo xogaa laga yaabaa inuu noqdo ilaa 2GB meelahaas marka ay khad fiican inaad raadsato ayaa wanaagsan si xoog badan markaasi isla markaaba kugu dhameeyo. haddii khadkaagu daciif yahay inaad ku dhibaatooto ayaa suurtagal ama waqti badan uu ka qaato. Markuu download kusoo dhigo download baad ku dhufan doontaa halkaas uu kaaga kugu dhamaanaya markaasi download marka uu dhameeyo hoosta markaasi waxa isla markaaba kusoo dhigi doona install. Waad install gareyn doontaa marka isaga wixii ka dambeeya shaqada qabsanaya adigu waad ka baxaysaa isaga markaasi is update gareynaya mobilkaagu. Hadda aniga waxa uu soo dhigay halkan your software is up to date oo markaasi uu update gareysan yahay 1 April ban markaasi halkan ku update gareeyay oo waqtiga markaasi loo available gareeyay in mobiladan uu ku shaqeeyo. Haddaba haddii aan intaa kaga soo gudubno adeegyada wata markaan si ayaan qaar halkan kaga tilmaami doonaa. Horta saddex adeeg oo iyagu aad iyo aad muhiima ama aad iyo aad markaasi aad u jeclaan doonto ayaa lagu soo kordhiyay. Adeega koobaad wuxuu yahay qaybtii hoose ee markaasi buttons-ka ahayd waa laga bedelay oo markaas waxa laga dhigay one handed mode ama one hand mode oo gacan kaliya markaasi ku isticmaali doontaa. Hadda halka sidaad markaas halkan ka arkayso markaan application soo furo qaybta yar markaasi soo taabanaya halkiisiiba ku celinaya. Haddii kan kale soo furo halkiisiiba ku celinaya. Haddii kan kale soo furo markaasi isagana halkiisiiba markaasi ku celinaya oo qaab yar markaasi aad iyo aad markaasi u fiican sida iPhone-ka oo kale qofkii iPhone isticmaalina markaasi uu fahmaya. qaybtii buttonadii ama qaybtii markaasi kan laga noqonayay iyo qaybtii markaa recent-ga ahayd hareeraha ayaa laga dhigay markaasi. Qaybtan waa qaybtii back-ta markaad ka noqonayso buttonadii ma laha dhinacaas soo jiidi doonta back buu oranaya dhinacan kale soo jiidi doonta back buu oranaya. Markaasi qaybtii recent-gana markaasi waxa laga dhigay inaad kan korso marka ugu jiido bartanka istaajiso halkan markaasi uu kaaga soo baxo wixii markaasi aad adeegsanaysa ama qaybtan recent-ga ku yaalay adeegyadii aad isticmaashay. saas oo doontaa marka halkan markaasi isla markaaba kaaga soo saari doona. Haddii aad doonayso in halka ku istaagin oo markaasi markaasi isla markaaba soo furto sanad odhan doontaa. Markaasi qaybtan aad markaad kor u jiido bartanka geyso halkan markaasi recent-ga kaaga soo baxaya oo haddii aad dhankan u yar jiido santiradana ayar buu kaaga soo baxaya halkan isma dhibaysidba xaggan wadi doonta markaasi isna markaasi wixii aad isticmaalayso dhan halkan kaaga soo baxayaan. haddii aan qaybtan halka kaga gudubno markaasi oon u sii gudubno kuwa kale waxa lagu soo biiriyo halkan markaasi uu leeyahay 9kan uu dheer yahay recycle bin lagu soo kordhiyay my filesta ama qaybtan markaasi device-ka aad wax ku shubato. Marka qaybta fileska soo gasho saddexda dhibcood ee koonaha taabo qaybta markaasi recycle bin baa kaaga soo baxaysa. Recycle bin ta marka doorato halkan waxa markaasi ku galaya folder-yada delete gareysay sidoo kale items-kii markaasi aad ka delete gareysay
device-kaaga ayaa halkan kugu gelaya 15 cisho inay kugu jirayaan 15 cisho haddii ay dhamaadaan laga yaabo inay ka baxaan laakiin ka hor waad kala bixi kartaa haddii aad u baahato awal hore recycle binka waxaa lahaa un gallery-ga laakiin hadda halkan waa lagu soo kordhiyey waxaa kaloo markaasi uu dheer yahay naankii oo uu leeyahay qaybta contactska ama qaybta lambarada waxaa lagu soo kordhiyey isagana recycle bin oo lambarada qaybta markaas soo gasho markaas saddex xariijimada koonaha doorato halkan waxaa kaaga soo bixi doona recycle bin oo lambarkii markaas aad delete garayso markaa ama si kiisa gacanta kaaga dhacda delete kaaga dhacdo ayaa halkan kuu geli doona isaguna sidoo kale 15 cisho ayuu afaaliyey bilaanaya ood kala bixi kartaa waxaa kaloo halkan lagu soo kordhiyey qaybta notification panelka haddii aan eegno waxaad markaas halkan ku arkaysaa in markaas qaabkii hore uu ka duwan yahay oo halkan hoosta markaas waxaa soo oli jiray sim card managerka ama qaybta sim cardka ay soo oli jirtay daatadii iyo labada sim card adeegoodii laakiin hadda imika waxaa halkan yaala media iyo devices haddii aan xaggan usoo jeedno markaasi xaggaa sara loo raray ood ku arkaysaa calliski iyo text message iyo markaasi mobile data waxaa kaloo halkan lagu soo kordhiyay markaasi uu dheer yahay kan kale buttonka ayarda halka sare ku arkaysa ee sitanka agteeda ma laha qaybta nanku ama fiirshananku ma laha oo markaas ugu dul dhufato wuxuu kusoo saaraya qaybtii markaasi switch off-ka ee laga baktiinayay haddii awal hore dhinacaasa ugu dul xajin jirtay hadda saas ma halkan ma taaban doontaa marka meesha marka ama restart baa siin doontaa ama switch off baa siin doontaa waxaa kaloo uu dheer yahay oo markaasi halkan ku jira waxaa kaloo markaasi halkan kugu jira in qaybta tagastiga aad ka bedeli karto oo iminka wadiga arkaya waxaan ka dhigay tagasti nooc kale oo ka duwan kuwan kale sorry haddii aan halkii hore markaasi dib ugu yar noqono qaybtii 100 mudka ama qaybtii markaasi loo furanayay navigation gasjarka waxaad kasoo furanaysaa settingka marka aad tagto waxaad taaban doontaa markaasi display mar doorato halkan aad navigation bar ku qorantay baa dooran doontaa halka buttonadii baa kaaga soo baxaya awal hore buttonadaas ay isticmaali jirtay laakiin hadda anu kanan isticmaalaya waa full screen gestures ayaan isticmaalaya markaas asaa u doorato kan halkaa more options ay ku qorantay baad sii dooran doontaa kadibna labadan ka aad rabto ayaa dooran doontaa tani waa hal gacan oo keliyaata oo markaas ay idhaahdo dib buu noqonayaa taasina waxa weeyaan saddexdii buttonadiina halkan hoosta kugu yaalaan laakiin tani buttonadu dhinacyada ay kugu yaalaan markaas uu noqday imika uu iga noqonaya xagga markaas soo noqdan uu kasii noqonaya markaasi oo baagtii sidoo kale recentkiina waxa laga dhigay inaad bartanka geyso sidii iPhone oo kale haddii aanad bartanka geyn dhankan bas aad jeedi doontaa xaggan uu kaaga soo baxaya markaasi wixii markaasi dhinaca kale ku yaalay haddii aan qaybtan markaasi halkan kaga gudubno adeegyo fara badan buu leeyahay oo kale muuqaalada ma ayaan markaasi ku eegi doonaa featureska dambe ee markaasi uu leeyahay Android 10 muuqaalkan maanta halkaas ugu joogi doonaa haddii aad muuqaalka ka gashay like ku qabo subscribe nas raaci aad iyo aad baad mahadsan tahay wassalaamu calaykum